السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan Ajmal Service dhamaan asxaabta igu xiran dhinac walba oo ay iga xirantiin dhanka page-ka, dhanka YouTube-ka, dhanka TikTok-ka waa maasantihiin. Inta badan waxa taqaanaan codkayga wajigayga uu idinku yar yahay. Wajigayga waxa idin hor keenay anigoo waliba wajigayga markaa fiirisaan ay ka dareemaysaan inuu murugsan yahay. arrin baan rabaa inaad idinka codsado waxaan rajeynayaa biidnillaahi alkariim inaad ii sameyn doontaan codsiga idinka codsanayo ma ahan wax adag ma ahan wax dhib idinku ah mana ahan wax inaan awoodin dhammaantiin waad awoodaan hadaa qalbiyada saafi iga dhigtaan oo waxaan ahay dad ilaahay darti isku bartay ilaahay darti u walaaloobay laana xumaan ma naga dhaxayso dad wanaag isku yaqaano wanaag isku bartay baan nahay hadii dadka qaar ay yihiin waalid iyo inta kale walaalo ee ah والد iyo walaalba waxaan ka codsanayaa caawa arin yar oo culeys ah oo aan rabo inaad ila qaybsataan arinta culeyska ah waa qiso yar oo kooban waan idinkaga sheekeynayaa qisadan waxay ku dhacday ama ay haysataa gabar walaasheen ah ma ahan inaan qisaynayo waxbaan idinkaga dhex codsanayaa ma ahan waxaan idinka codsanayaa lacag qof idinka mid ah lagama rabo hal senti Allah ka dhigay laakiin kaliya waxaan idinka rabno waan idinkugu soo gudbinaynaa balse waa marka aan idin la wadaagno xanuunka nahaya oo aad dareentaan xadka uu la eg yahay marka baan maleynayaa niyadihiina wax ka soo go'ay ee duca ah inaad siin doontaan waxa jira gabar walaasheen ah oo Soomaaliyeed oo kulay dib haysto daqiiqatan aad u murugooday anigoo socda waxaan garan waayay meesha aan u socday waxaan ka dhumay wadadii aan hayay kaliya culeyska gabadha haystaan dareemay nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam almu'minu lilmu'mini kalbunyan qofka mu'minka qofka kale walaalkiis ah wuxuu u yahay dhismaha oo kale dhismaha iskama maarmo hal bulkeeti kaliya guri ma noqdo hal tiirna guri ma noqdo balse wuxuu macna yeelanayaa marka midba midka kale lagu kabo كالبنيان يشد بعضه بعضا متكيس متك كلو أتكينيا دتك مؤمنين توا نوعا أو كلا ولا الإسكما مارنو والله نوعا ربنا هدان أهانو قلدا ربنا أنكر على نقطة إسكمار ممنيهن مركي لقصو تجا مسلمين ما وحن وذاكنا ولا التني مقاسة أو أحسن مالنمو أنا وحن آمن سنة هاي إن قف والبقو صومالة ولا الك إلى الشيء وياها سببتها وحن هاي dadka kaliya ee halka luqad wadaaga halka jinsiyad wadaaga halka midab wadaaga halka diin wadaaga inta umadu iskuma haysato alxamdulillah nasiibkaas aan leenahay balse imtixaan baan haystay imtixaankan ilaahay naga saaro gabar walaasheen ah oo qurbaha ku maqan baa maanta isoo wacday waxay ii soo wacday arin ay iga codsatay inaan idin la wadaago ma idin ka rabtaa xoolo iyo waxba kaleeto laakiin arinteeda markaad maqashaan qisadeeda dhageysataan adinka u hagar bixi doono waxa ay idinka codsanaysan u sameyn doono gabadhan walaasheen ah waxay ii sheegtay hooyadeed inay xanuunsan tahay ilaahay ha u caafiyo wallahi qof walbo oo leh hooyo baa dareemi kara xanuunka qofka ay ka dhimatayna Allah ilaahay u naxariisto hooyadii laakiin dadka hooyooyinka ay nool yihiin baariyaasha ah hooyo macnaheedu waxa uu kaliya karanaya qofka ay korisay barbaarisay baa xanuunkeeda dareemaya hooyo wallahi ma aqaano waxaan ka soo qaaday booskayga oo kaleeto haddana xanuunka iiga sheegtay aad baan uga murugooday hooyadeed baa xanuunsan si maskaxiyan ah maskaxiyanta xanuunka hooyada ku dhacay waxaa sababay geeri ku timid ayada aabaheed gabadha iyo walaalkeed aabaheed baa la dilay masaajid gudihii lagu dilay waxaa kaloo la dilay wiil la dhashay ayada oo lagu dilay gurigiisa hortiisa hooyada la kulantay labada dhacday xanuunka badan ninkeedina lagu dilay masjid dhaxdii ayadoon xanuunku ogeyn waa mootul faja waana moodka meesha ugu xanuunka badan geeri waxa ugu xanuun badan geerida faja ku timaada ayadoon la filanaynin wiilkeedina lagu dilay guriga hortii hooyada inay u jirato si maskaxiyan ah marka gabadhi ayadan xaalad baa haysata Yurub sharci Yurub baa ku adkaaday
hadda inkastoo ay tiri uu i xariisan yahay waxaan idinka codsanaynaa 100% gabadhaan ay idinka dalbatay idinkama dalbanin xoolo iyo wax kaleeto kaliya waxay idinka dalbatay inaad u duceydaan waxay igu tiri abay waxaan ka codsanayaa maadaama dad badan ay kugu xiran yihiin waxaa laga yaabaa hal qof oo ducadiisa ay mustajaabo tahay in Ilaahay uu ka soo saaro waxaa ku jirnaa bil barakeysan oo shahru shacbaan ah waa bil shacbaan waliba 15keeda baan joognaa caawa 16keeda wali lama gaarin marka waxaan si naxariis la dhamaantiin aan idinkaga codsanaya Ilaah baan idinku dhaarinayaa ma idin dhihi karo laanahu waan maxaa la dhahaa waa wax weyn inaan Ilaahay idinku dhaariyo ma idin qasbayo laakiin damiir naxa iyo walaaltinimo hadii idinku jirto iyo muslimnimo waliba khaalis ah inaan gabadha ugu duceysan si niyad ah booskiino kala ka soo qaadaan hooyo walba ay dhigto hooyada booska ay taagantahay ay is dhigto xanuunsan maskaxda waa ogtiin wax sahlan ma aha waa shayga xubinta bini'aadamka ugu muhiimsan maskaxda ka tagto wax walba way ka qayiran yihiin Ilaahay inuu miirkeed u soo celiyo Ilaahay inuu jiradan qalbigeeda ka dejiyo oo sida hore ahayd si ka fiican ay noqoto gabadhan Ilaahay inuu u suurto geliyo inay hooyadeed u timaado ayadoo caafimaad iyo nabad qabta sharcigeedana haysata waxba aynan ka dhineen Ilaahay inuu ku arzuqo bedel khayr qabo ee iimaan iyo qalbi nadiif ah Ilaahay inuu qulubtooda dhigo ayada iyo hooyadeedba balse kaliya caaw muuqaal kale awooda ku diyaariya wallahi yeelan waayay maanta oo dhan shucuurteedii iyo markaan soconay iyo markaan xitaa shaqada ku jiro gabadha hadaladeedii iyo booska hooyadeed ay taagan tahay baan Ilaah baan ku dhaartay qalbigayga ka guuxayay ma ihi dadka ilinta ay u fududahay balse wallahi qalbigan ka ooyo maanta waxaan idinka codsanayaa ayadana idinka codsatay anigana aan idin weydiinayaa in aad Ilaahay darti ugu duceysaan in aad gabadha salaadaha waajibka marka dukataan baryada Ilaahay wuu aqbalaa in aad si niyad khaalis ah Ilaahay u weydiisaan hooyadeed inuu Ilaahay u caafiyo ayadana Ilaahay umuraheeda inta u fududeeyo inuu hooyadeed Ilaahay u nabad keeno ayadoo caafimaad qabto miirka iyo maskaxdan hooyadeed Ilaahay u soo celiyo inta Ilaahay noo weydiiyo ayada u weydiiyo aan u wada barino walaalana waxa walaalo ku nahana waa inta آخر وحبا اسكو ما تري كرنا لكن الدون كان اسكو عاون كرنا